aniga waxaa la yidhaha Suleeqa Xulbaala countigaanna waxaad iga maqasheen aan u malaynaa mar hore inta waxaan soo galay 2017kii waxaa la soo galay Governor Roba wasiiran u ahaa dowladdiisa waa ka tagay haddana waxaa aaday baarlamaankana codkii adinka sanadkiin soo dhaafayna aad rideen baan ku tagay si magacaabis si aan doorasho ahayn marka qaar badan Allah idin siiyo maanta horta ilaahay ma had iskale in aan meeshan iskugu imaadno ilaahay ma hadda kale weyn u cilina waxa horta gabdhaheeni oo doorasho ka imaaday kabtaas iyo Malkaamari iyo Guba ilaa iyo Mandera North dhan oo maanta si wanaagsan meeshan aan ugu helnay senatageena wuxuu diyaariyay berri wax la dhahaa women empowerment program waxaa la sameeyaa fundraising oo bilcaanta dhan maamooyinka Mandera idil group loo kala bixiyo oo lacag loogu gur rabo oo madaxweynaha noo imaanay insha Allah taas aad u maadeen maantana nasiib ay noqotay taas iyo arintan inay isku soo toosto waxaan isku soo toosi maaha waxaan isku soo babaangeysannay maaha ilaahay qorina isku soo toosaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin berrina meeshaas waa ka wada qayb galayna ilaahay hadduu dhaha maantana gabdhihii Mandera East Banisa North meeshan waxaa u malaynaa qof walba halaa ka joog khayr Allah idin siiyo horta anigoo hadlinba waxba sheegin nadba hore isii qaadeenba aniga midaas oo qaadista gadaal muu noqonay maxaa yeelay adinka maanta waxaan kugu yeeri kaali soo qaada maaha kaali kuraha ila doono aan kugu yeeri marka waxaan rabaa kursigan waxaa kursi oo ay ku tartamaan haweenka bas haweenka bas ku tartama laakiin nasiib darro haween bas looguma shaqeeyo waxa looga shaqeeyaa haweenka inta danta yar nin lagama bixinin inta danta yar laga hadlay marka laga hadlay ninka odayga ku jiro ilmaha ku jiro ninka jiiska iyo naafada iyo dadka ma aragtay oo xoogo ilaahay uu ma aragtay lixdooda lixaad aan qabin ku jiro qof walba oo dan yar intay haweenka u weyn yihiin oo inta ugu liidatay ku jirtaa looga talgalay marka kursi oo dhadheel lagu soo raadinayo ma aha kursigan waxaa waaye kursi haddaan soo raadina aan u soo raadinayna u soo danyeelinayn inaan ummadda aan u shaqayno kursigaanna ma dhahay ana qabiil aan u soo qaadaha ma rabi inaan warkaas ay idiin sheega beentaas in ay idiin sheega ma rab laakiin wixii xaqiinaad ba helayninba laakiin wixii xaqiina waa un idin keena un qof walbana wixii xaqiisa inta countiga ku degan kan maskiinka iyo kan kale koonaha degan iyo kan aan weligiis la qadarinin insha Allah waxaan isku dayaa cadaaladaas iyo inaan uga shaqeeyo ummadda Ilaahay kursigan marka adinkana khayr Allah idin siiya aniga waxaan rabaa qof walba meeshuu fadhiyo warkaan inuu ka sii wado maxaa yeelay fadhi aan muslim iskuma dhisa sama campaign koo uma joogo gabadha maxay u soo hormartinay dhihina koo waxaas u joogi ani laakiin koo waas ii jooga maxaa yeelay county dhan kuru laga raadina gabdhaha hadda ka imaaday Banis iyo Mandera North fadhigiina in kugu imaana ilaahay daas dhah insha Allah waxaan tagi doonaa Mandera koona ugu dambe daandu gadaasheeda meel gagaba saakela dha ku taal dhinacan kale waxa ku taal Gutulo dhinacan kale waxa ku taal Malkaamari inta u soo soco Raamo ilaa iyo Helasuuf dhinacan kale Lafay ilaa iyo Kilweheri ilaa Boda Point 1 kuraan laga raadina intaasna diyaar waxaan u ahay ilaahay inuu haduu dhaha inaan qof walba aan fadhigiisa uga taga ma fahanteen Mandera waxa caado u noqotay inta badan gabdhihii inay ku daw dhuuntaan wax line up la dhaha waxaan rabaa horta midaas iyada sanadkan naagta soo socoto kursi soo doon rabta line up wax la dhaynaya qalbigeeda ka bixis gabdhaheena waxaan rabaa xaqiina saad ku helaysiin waxa way gabar adinka aad soo doorateen oo wax qabadkeeda aad ogtihiin oo meel aad ku hubsatiin inaad soo qaadatiin ina berin nin aad naag idin keenin nimankeena khayr Allah siiya kursigooda MB waa u daynay haraasadeena sama midkaan inay iyaga idin la soo qabsanin inaad ku dadaashiina raba horta maanta wixii ka bilowda gabar walba guriga ka imaada
inay ka bilowda kan dariska ay ku xijisa kan kale qaraabada ay ku xijisa kan kale dumaashiga iyo xididka kale iyo qaraabada kulli in la gaarsiiyo